بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا شرفت لي كحرا كنال كان برا في إنجليز وكنال أو برتين إذا كوسو قد بينه عشرة كسابسان برشة في إنجليزك وحنا إذن لحظة يعني جو عز كريم محمد وحنا إلهي هاي رمضان كريم إلهي رمضان كاين أقول ما يصير خير براري برواقه أنا قد جرنا طبعا كدم أو فضل بدن إلهي أنا لكل ميو هبينك قيمة بدن إلى ليلة القدر وهاي نقدر كوي كفايدة إن شاء الله. عشر كلمات ما أنت وعشر كلمات تبانات قيبتي سيكوبات waxaan uga hadlaynaa have or has oo macnaheedu tahay oo ama aan ku cabireyno haysasho shay haysashadiisa. fadlan haddaa cashirkan ku cusub tahay cashiradeen hore dib uga laabo, sidoo kale haddaa kanaalkan ku cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe saartid iyo share iyo like sidoo kale si aniga noogu noqoto dhiirigelin adna aa uga faa'iidid cashirada aan soo gelino. mahadsanid. haddaan ku bilaabo cashiradeen waxay isugu jiraan waxa aan soo barnay iyo waxa nagu cusub anagu isku darnay si aan wada fahanno wixii cusub aan baranayna maanta anaga ku xiriirinayna wixii hore aan soo barnay. marka waxaan dhahnay cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay have or has oo macnaheedu tahay haysasho shay haysashadiisa. sida I waa aniga, waa subject pronoun. waxay noogu xigay you oo ah adiga, you waa adiga ama adinka. we anaga, we waxaan dhahnay waa anaga. they oo ah iyaga, they waa iyaga. so marka I, you, we, they waxay wadaagaan hal shay oo ah have, macnaheedu tahay haysasho. tusaale I have waxaan haystaa ama waxaan leeyahay. You have waxaa haysataa ama waxaa haysatiin. We have waxaa haysanaa. They have waxay haystaan, ayaga waxay haystaan. They have marka have waxaa lagu cabiraa shay haysashadiisa. qaybtan hoosena waxay nagu qoran oo qaybta kore ka duwan. He waa asaga, he waa asaga waxaan ka wadnaa wiil ama nin. ereygan he waxaa qaataan labka bini'aadanka ah. waxaa ku xigo she, iyada waa gabar ama dumar. she, it waxaa u isticmaalnaa dhahnay inaan ku cabirno manoolaha ama sheeyaasha iyo xayawaanaadka. it saddexdan ayagana waxay wadaagaan has. have waxaa qaataan afartan aan kasoo hadalnay oo ah I, you, we, they. all waxaan dhehnaa they have, I have, you have, we have. dhanka hoose he has wuxuu haystaa ama wuxuu leeyahay. she has waxay haysataa ama waxay leedahay. iyo it has. saddexdan waxay qaataan has. hasku qaldin. saddexdan waxaan dhahnay waxay qaataan has. afartan kore waxay qaataan have. ayagoo faahfaahsan waa kuwaana marka dhankeena midig. waxay noogu qoran dhankan jumlado aan kusoo qaadanayno wixii aan soo barnay iyo wax nagu cusub. inta ugu badan waa soo barnay kaliya hal shay nagu cusub. jumlada kooda ku bilaabo the girl has long hair. the girl has long hair. gabadhu waxay leedahay timo dheer. hair waa timo, longna waa dhirir, hasna waa haysasho ama lahaansho, gaalna waa gabar. the-na waxaan ku cabirana dhahnay shay aan isla ognahay. marka jumladan waxay ka hadlaysaa gabar qaas ah oo laga hadlayo timaheeda noocay yihiin. waxaa la dhahay the girl has long hair. gabadhu waxay leedahay timo dhaadheer. marka girl sababta has ugu qaadan waxay tahay girl waa gabar iyo dumar iyo muxuu ahaaday dhadig. waxaan ku cabiraynaa ama qaadanaynaa has. tusaale halkan waxay noqon lahayd she yaa loola jeeda, gabaraa loola jeeda ama dumar. girl waa sidoo kale has, saas darteed usoo qaadanay. the boys have caps. wiilashu waxay wataan koofiyad. caps waxaa la dhahaa koofiyadahan saan usoo hore kasoo dheer waxaa la dhahaa caps. the boys have caps. wiilashu waxay wataan koofiyado.
marka boys waxay soo hoosgalayaan they. halkan soo maaragtay they ay soo hoosgalayaan ayaga. wiilashan waa dhowr qof markaad tilmaamaysa ayaga ama wiilasha. The boys have cups. marka maadaama aan dhahna boys waxay soo hoosgalayaan they, waxaa qasab inaan qaadano have. The boys have cups. wiilashu waxay wataan koofiyadaha hore ula dheera waxaa la dhahaa cups. I have a friend. I have a friend. waxaan leeyahay saaxiib. I have a friend. waxaan leeyahay saaxiib. I waxay ahayd aniga oo subject pronoun ah. Have waa muxuu ahaa waa haysasho shay haysashadiisa ama possession ama possessive. A friend saaxiib waa hal. maxaa yeelay consonant f ay ka bilaabataa. maadaama consonant f ka bilaabato oo singular noun ay tahay waxaan soo qaadan anagu ka cabirano inaan ka hadlayno hal saaxiib. I have a friend. waxaan leeyahay saaxiib. He has an umbrella. He has an umbrella. Umbrella waa dalad waan soo baranay. waxaan ka wadnaa jumladan wuxuu wataa asaga dalad ama wuxuu haystaa dalad. an sababta usoo qaadan waxay tahay waa singular noun. singular noun waxaan dhahnay haddaan dib idiin xasuusiyo laba kala qaadnaa markaan muxuu ahaa cabirayno ama bilaabayno inay anagoo fiirinayna xarafka ugu horeeyo. haddee consonant ka bilaabato a ka hormarinaa. haddee vowel ka bilaabato an. haddaa vowel dib idiin xasuusiyo waxay ahayd a, u, e, I iyo o. shantan xaraf waxaa la dhahaa vowels. hadda midkood oo ka bilaabato waxaa u baahannahay an ka hormarino. marka umbrella u ay ka bilaabato waana vowel. so saas darteed waxaan ka hormarsiisanay an. He has an umbrella. wuxuu haystaa ama wuxuu wataa dalad. The dog has a bone. bone waa laf. laftan muxuu laf nooc walba ha ahaato bone la dhahaa. laakiin middan halkan waxaa ugala jeednaa lafa waxaa jirta oo muxuu eeygu aad u jecel yahay lagu ciyaarsiiyo oo iska qaniina maanta oo dhan oo ku mashquulo. The dog has a bone. eeygu wuxuu haystaa laf. marka dog waa xayawaan. marka wuxuu soo hoosgalayaa it. itna waxaan dhahnay waxaan ku cabirnaa xayawaanada iyo manoolayaasha. saas darteed waxaan qaadanaynaa has. The dog has a bone. eeygu wuxuu wataa laf. My waa possessive pronoun. waa wax lahaansho ah ka hadlaysid. My mother hooyaday. hooyadaa waa leedahay. My mother and I hooyaday iyo aniga. and waxaa laga wadaa iyo. Have waxaan leenahay a car baabuur. My mother and I have a car. aniga iyo hooyaday waxaan leenahay baabuur. so marka aniga iyo hooyaday waxaan soo hoosgalaynaa we anaga. waxaan u baahanaa markaas inaan qaadano have. We have a car. waa sax. marka halkan waa kala qaadanaa we markaad soo qaadatid ma qeexna waxa ka wadid iyo inta qof aad tihiin iyo qofka ka hadlaysid. laakiin halkan waa kala saartay oo waxaa ka hadashay hooyada iyo adiga inaad gaari leedihiin. waa hal gaari bas. My mother and I have a car. sababta hal gaari u tan waxaa caddaynayso aadan iyo car oo singular noun ah maadaama s la soconin. My mother and I have a car. ani iyo hooyaday waxaan leenahay baabuur. anigii hooyaday waxaan leenahay baabuur. jumladan ugu dambeysa waxay leedahay we have 5 kittens in our house. We have 5 kittens in our house. kitten waa markii astaan ay ka maqan tahay. waa hal bisad. bisadaha yaryariska waxaa la dhahaa kitten. bisadaha yaryariska oo markaas dhasheen ilaa xoogaa wax yar ay ka soo ronanayaan laakiin bisad aan soo gaarin waxaa la dhahaa kitten. marka waa jumlo intaa marka 5 aan dhanismaan waxaan haysanaa 5 bisada yaryar aan ku haysanaa gurigeena dhexdiisa. We have 5 kittens in our house. gurigeena waxaa ku haysanaa 5 bisado yaryar ah. We have 5 kittens in our house. marka I, you, we, they waxay qaataan have oo ah haysasho. I waa aniga, you adiga, we anaga, they iyaga. afartaas waxaan siinaynaa
have haysasho. I have waxaan leeyahay maxaa haystaa, you have, they have, so on. waxaa ku xiga marka qaybtan hoose saddex shay ama saddex subject pronoun ah oo qaadanayaan has oo kale ah he, she, it. saddexdan mar walba has ay qaadanayaan, mar walba. afartanna mar walba have ay qaadanayaan. waxaa fila inaa fahanteen. cashirkan waxaynu ahaan doonaa cashirkeenii 10aad qaybtiisii 1aad. intaynan ka bixin waxaa idinkaga cudur daaranayaa in maalmahan ama isbuucyadan cashiradeeni si toos inagu socon waayeen oo hakad yar naga soo galay ama aan la soo dahay inaan soo geliyo sababo mashquul iyo arrimo darteeda. marka insha Allah haddii wixii ka dambeeya waxaa inoo soo gelin doonaa cashiradeena isbuuc walba 2 cashir, isbuuc walba 2 cashir bilowgiisa iyo dhammaadkiisa insha Allah. intaynan cashirka xiga ku kulmeyno waxaan idinkaga tagay khayr iyo baraari barwaaqo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.